Assalaamu calaykum ardayda sharafta mudan ee cusub kusoo dhawaada qaybtii fasalada ee Kasma Academy. Maanta waxaan idiin sharaxi doonaa habka casharada aad uga helayso Telegramka. Magacaygu waxa weeyaan Axmed. Waxaan idiin sharaxayaa qaybta fasalada. Marka Telegramki waa kan halkan shaashada yaala bartankeyga. Markaad saa ugu dhufato waxa kuu soo baxaya adiga laba group. Xaggan imika waxa yaala gruubo badan. Waa qaybtii macalinka uu ka maamulayay ardayda fasalada. Marka fasal kamid ah haddii aynu ku dhufano tusaale ahaan waxaan ku dhufanaynaa Intermediate 1 June 101 ka 101 ay ku qoran tahay. Markaad ku dhufato waxa kuu soo baxaya halkii casharada ku soo baxaysa. Haddii cashar kamid ah aynu ku dhufano tusaale ahaan Intermediate lesson 47 baan ku dhufanay. Marka casharkii ayaa inoo soo baxaya. Marka playerka kuugu jira ay ku xiran tahay waad ku dhufanaysaa casharkii baa toos kuugu soo baxaya. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena toddobaad ee buugeeni Intermediate-ka. Okay, maanta aan qaadan doonaa maxay vocabulary iyo reading ayaan leenahay. Okay, marka macalinka casharkii sharaxay kaasi waad ka noqonaysaa. Marmar waxa dhacda casharadu inay ka yar raagaan. Tusaale ahaan imika waxaan ku dhufanaynaa ka 46 Intermediate lesson 46 aan ku dhufano waad arkaysaa inuu wareegaya intuu soo download garoysmayo. Kulli waqti yar bay qaadan doontaa waxoogaa inta inaad iska yara sugto sameerto inta casharku kuu soo download garoysmayo. Imika in yar ayaa hadhay inuu inoo soo wada download garoysmo. Saad arkaysaan calaamadda wareegaysa waxay kuu sheegaysaa inta casharka ka hadhay. Markasta way sii weynaanaysaa. Markasta way sii weynaato waxay ka dhigan tahay casharkii inuu soo download garoysmo in yar baa ka hadhay. Imika markuu kuu soo download garoysmo casharku ama uu kuu soo dego mobilkaaga kuugu soo dego. Imika tusaale ahaan waa casharkii ka uu soo degay waad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada ardayda casharkeeni 46aad ee buugeeni level 3-ga Intermediate-ka. macalinka wuxuu kugu sharaxayaa maqal iyo muuqaal labada level ee hoose waxaa lagu sharaxayaa Soomaali marka ka haddaynu ka baxno sidoo kale waxaan idiin sharaxi doonaa okay marka ka casharada haddaynu ka baxno isaguna waxaa jira qaybta wada sheekaysiga loogu talagalay kan casharada kaliya tunba lagu soo diraa kan intusay haddii mid imika beginner kan aan eegno waxa weeyaan qaybtii beginner speaking group ayaa ku qoran. waa qaybtii wada sheekaysiga loogu talagalay. Marka group kasta iyo level kasta waxay leeyihiin laba group bay leeyihiin mid casharada loogu soo diro iyo mid loogu talagalay ardaydu inay ku wada sheekaystaan oo luqadda ku practice gareeyaan. Imika ka haddaynu ku dhufano 4 message baa ku jira dad baa arday baa ku wada sheekaysanaysa oo luqadda ku practice gareynaysa. saad arkaysaan imika Xasan Cabdalle wuxuu soo qoray I am fine qadar yes I can speak English buu soo qoray. Marka waxoogaaba ka yara qaldan. saad arkaysaan yes I can speak English fluently buu jeeday Nuur Sanweyne. Marka waxoogaa waxay doonayaan ardaydu inay sameeyaan luqadda practice-kii waxoogaa improve gareeyaan. Marka imika Nuur Sanweyne haddaad aragtaan wuxuu soo qoray where do you live bro Cabdiweli wuxuu jeedaa halkeed ku nooshahay. Marka wii buu qoray in yar baa ka dhiman macalinka imika u sixi doona oo soo geli doona. Okay qaybtaasina waa qaybtii wada sheekaysiga. Haddii aynu qaybtaa ka tagno waxaa jira ardayga marka aad ka soo shaqayso exercise-ka sideed ugu soo diraysaa waxaad ku dhufanaysaa intan xaggan inta saa u dhaqdhaqaajiso waxa kuu soo bixi doona qalinka yar baa kuu soo baxaya qalinka yar buluuga kor haddaad u qaado waxa laga yaabaa inaanay conversation badan ku jirin inuu kuu soo bixin. Marka imika qalinkaasaan ku dhufanaynaa. Okay markaad ku dhufato wuxuu kuu geynayaa halkan deetana macalinka nambarkiisii aad save garaysatay ayaad halkan ka baadhaysaa. waxaad ku qoraysaa Kasmo office baan xaggan annaga noogu save garaysan. haddii aad ku dhufato adigu waxaad ku qoran kartaa Kasmo ama macalinka ayaad ku save garaysan doontaa. Marka aan ku dhufano tusaale ahaan imika kuwan oo kale saad doonayso inaad u dirto marka waxaad ku dhufanaysaa calaamadda yar ee mikrofoonka agtaala. Mikrofoonku wuxuu kuu saamaxayaa macalinka inaad cod u soo duubto. haddaad ku dhufato cod baad u soo duubataa
aan ku dhufano tusaale ahaan markaan ku dhufano codkii ayuu ku duubayaa waxoogaa markaad saa ugu dhufato waad haynaysaa marka waaba qaybtii xataa waxaad kusoo duubi kartaa qayb video waad ku duubi kartaa marka qaybta haddaad ka baxdo okay aan ku noqono kasma office ku dhufano marka waxa soo baxay imika kamarad baa kuu soo baxday oo haddii aad doonayso inaad kamaradii aad duubto weeyaan calaamadda yar haddaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaysa haddaba saad macalinka cashirka ugu diri lahayd tusaale ahaan imika waxay hor yaalla qaybtii kamaradda ahaydna waa qaybtaa bidixda ku taalla haddaad ku dhufato buuggii baa kuu soo baxaya marka cashirkii intaad ku wada sinto oo aanay qaybina ka goyin ayaa waxaad ku dhufanaysaa waad sawiraysaa deetana wuxuu kuu soo dhigay calaamadda yare buluuga ee fallaadha sida diyaaradoo kale u samaysan waad ku dhufanaysaa deetana way kuu diraysaa wataa wareegaysa way dirtay macalinkiiba u dirtay okay haddaba casharaduna say kuugu soo download garaysmaan waxaad furanaysaa aan ku tuso mobilkaaga kuugu soo dhacayaan toos oo xaggan programkaba ka geli maysid markaad mar ay kuu soo download garaysmaan saadan ugu noqon waxaad tagaysaa saddexda calaamadood ee ku yaala xagga ugu sareysa telegram ku qoran tahay agteeda markaad ku dhufato xaggana kuu soo dhacaysa deetana waxaad taabanaysaa xagga ugu hooseysa qaybta labaad oo ay ku qoran tahay settingska markaad ku dhufato hoos baad u dhaadhacaysaa deetana waxaad ku dhufanaysaa data and storage waxa weeyaan data and storage meesha ku qoran tahay ma ku dhufatay marka say kuugu soo download garaysmaan ama kuugu soo degaan casharada oo mobilkaaga aad uga hesho iminka taa videoga calaamadda yar baa u furan haddaad ka xidho kuu soo degi maayo oo waxaad programka markaad soo gasho unbaad ka helaysaa laakiin haddaad doonayso mobilkaaga inuu kuugu jiro calaamaddaasi ayaad furaysaa okay iminka waan furnay videoga ma arkaysaan videoga waan furay sidoo kale ka sawirada haddii macalinku kuu soo diro sawiroo kale oo doonayso mobilkaaga inuu kuugu jiro waxaad furaysaa isagana meesha ku qoran tahay videoga ka yara sareysa halka videos ku qoran tahay kaasaad isagana furaysaa marka mobilkaaga kuugu jirayaan uma baahna sidan aad internetka furto intaasaan kusoo gabagabayn doonaa habkii casharada aad u isticmaalaysay wixii su-aalaad qabtaan macalinkaad toos usoo weydiin kartaan oo idinka soo jawaabaya aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waa axmed oo idin leh kusoo dhawaada qaybta fasalada ee kasma academy